السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa qisadii cajiibka ahayd ee saxaabigii weynaa Umayr bin Wahab. Umayr waxa uu kamid ahaa dadkii ka qayb galay dagaalkii Badr, isaga oo la safnaa gaalada. Nasiib wanaag kuma uusan dhiman, laakiin waxa laga qafaashay wiilkiisa Wahab oo gacanta u galay muslimiinta. Umayr waxa uu ka cabsan jiray in ay muslimiinta u qabtaan wiilkiisa dhibaatadii uu aabihiis u geysan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa. waayo wuxuu Umayr ka mid ahaa kuwii sida aadka ah u cadaadin jiray nabiga iyo asxaabtiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayna tahay goor subax barqin ah ayaa waxa uu Umayr aaday Kacbada si uu u soo dawaafo Kacbada, isla mar ahaantaana uu u barakaysto sanamyada halkaas yaalay. markii uu yimid Kacbadii wuxuu arkay Safwan bin Umayya oo ag fadhiya dhagaxa Xajrul Aswad. Umayr ayaa salaamay Safwan isaga oo ku yiri subax wanaagsan. Safwan ayaa ugu jawaabay Umayr isaga oo leh subax wanaagsan Umayr oo sidoo kale. waxa furfurantay sheeko. waxay isla soo qaadeen jabkii iyo dhibaatadii ka qabsaday dagaalkii Badr. waxay tiriyeen dadkii la qafaashay oo ay qafaasheen muslimiinta. waxay si murugo leh uga sheekaysteen dadkii gaalada ahaa ee ku dhintay dagaalka, dabadeedna lagu guray ceelkii weynaa dhexdiisa. Safwan ayaa hadalkii qaatay oo yiri wallaahi khayr kuwaasi gadaashooda ma ahaanin. Umayr ayaa ugu warceliyay ha waa runta. wax yar ayay aamusnaayeen kadibna Umayr ayaa yiri haddayan jirin dayn leegu leeyahay oo aan cid iga gudaa aan jirin iyo caruur aan uga cabsanayo ayd iyo dayacdaro, waxaan aadi lahaa Muhammad si aan u soo dilo. wuxuu haddana si hoos ahaan ah u yiri haysashada ay haystaan wiilkayga ayaa sabab iga dhigaysa in aan saa yeelo. Safwan ayaa hadalkiisa ka faa'iideystay oo waxa uu Umayr ku yiri Umayrow, waa tan koowaad ee daynta lagugu leeyahay aniga ayaa dushayda saartay oo ka gudaya. tan labaad ee ah ciyaalka aniga ayaa ku kafaala qaadaya noloshaada, oo wax waliba oo ay caruurtaydu wadaagayaan ayay iyaguna la qaybsanayaan. waayo maalka iyo hantida aan haysto ayaa ku filan dhammaantood raashinka ay cuni lahaayeen. haddaba Umayr ayaa hadalkii u riyaaqay oo waxa uu Safwan ka codsaday in hadalkani uu ahaado mid qarsoodi ah oo aan la shaacin. Safwan waa uu ogolaaday. Umayr waxa uu ka dhaqaaqay meeshii uu fadhiyay ee Kacbada, isaga oo cadaawad iyo xiqdi aad u weyn u haya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa. Umayr waxa uu u diyaar garoobay sidii uu u fulin lahaa ballantii uu qaaday, isaga oo diyaarsaday qalabkii iyo gaadiidkii uu ku safri lahaa. dhinaca kale waxa uu xirtay seeftiisii sunta marsanayd. Umayr waxa uu u safray magaalada Madiina isaga oo doonaya in uu soo dilo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markii uu yimid magaaladii waxa uu aaday dhinaca masjidka, halkaas oo uu joogay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markii uu soo dhawaaday meel u dhow iridka masjidka ayaa waxa arkay Umar bin Khadaab oo markaa la fadhiyay qaar ka mid ah asxaabta. waxay ka sheekaysanayeen dagaalkii Badr iyo wacdarihii ay ku dhigeen gaalada, sida qafaalka ay qafaasheen qaar ka mid ah gaalada, laynta ay laayeen, iyo waliba sida uu Allah ugu manaystay gargaar aad u weyn. Umar bin Khadaab ayaa waxa uu daymooday dhinaca masjidka, isla markiina waxa uu arkay Umayr bin Wahab oo ka soo degaya ratigii uu fuushanaa isaga oo sita qalabkii dagaalka. Umar ayaa intii uu soo booday yiri isaga oo argagaxsan aygan Umar bin Wahab ah waa cadowgii Alle. wallaahi waxaan sharaf ahayn lama iman halkan. Umar waxa uu ku yiri ragii uu la fadhiyay la socda marka uu u galayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, adinka oo ku harreysan kana digtoonaada in uu dhakro ama dilo rasuulka sallallahu calayhi wasallam. hase yeeshee Umar waxa uu markiiba u galay rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaga oo ku yiri rasuulkii Ilaahayow, waxa yimid cadowgii Alle ee Umayr bin Wahab isaga oo xidhan seeftiisii sumaysnayd. umana malayn maayo in uu u yimid wax aan ahayn shar. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yiri ii soo geliya. haddaba Umar waxa uu soo aaday Umayr isaga oo qabtay qamiiskii uu qabay kuleetigiisa, seeftana waxa uu kula dhagay qoortiisa. kadibna waxa uu la yimid rasuulka sallallahu calayhi wasallam. kolkii uu arkay rasuulka waxa uu sameeyay Umar waxa uu ku yiri siidaa Umarow. rasuulkii waxa uu Umayr ku yiri ii soo dhawow. Umayr bin Wahab waxa uu u soo galay rasuulka waxa uu ku yiri isagoo salaamay rasuulka
subax wanaagsan. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu ugu jawaabay, ilaah waxa uu nagu maamuusay salaan ka khayr badan salaantaada, waana salaanta ay isku salaamaan ahlu jannaha. Cumayr waxa uu yiri, wallaahi adiga kama fogid salaanteena. intaa kadib rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu Cumayr weydiiyay sababta uu u yimid. Cumayrna waxa uu yiri, waxaan u imi in aad ii soo daysaan wiilkayga oo aad igaga qafaalateen dagaalkii Badr. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu weydiiyay waxa ku xambaaray in uu seefta wato hadiiba uu saa u yimid. Cumayr waxa uu yiri, inkaar Allah ku rido seefo oo dhan, waayo maxay noo qabatay oo tartay dagaalkii Badr. haddaba rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu u sheegay sababta uu u yimid in ay ahayd in uu dilo rasuulka. arrinkaasna waxaa loogu sheegay si waxyi ahaan ah. wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam Cumayr ku yiri, adiga iyo Safwaan ayaa waxa aad fariisateen meel u dhow dhagaxii ku agyeelay Kacbada. dabadeedna waxa aad isku soo qaadeen oo aad ka wada hadasheen dadkii gaalada ahaa ee lagu laayay dagaalkii Badr. adiga waxaa tiri haddii aysan jiri lahayn deen laygu leeyahay oo aysan jirin cid iga gudda deyntaas iyo ilmo aan uga cabsanayo cayd iyo gaajo in ay u dhintaan, waxaan u kicitimi lahaa sidii aan u soo dili lahaa Muhammad rasuulka sallallahu calayhi wasallam. hase ahaatee Safwaan ayaa kaa xambaaray deyntaada iyo ciyaalkaaga si aad aniga ii soo disho, laakiin ilaah ayaa iga ka ilaaliyay. Cumayr afku kala qaaday oo waxa ka soo haray fajac iyo yaab. dabadeedna isaga oo aan hadal kale dhihin ayuu yiri, waxaan qirayaa in aad tahay rasuulkii Ilaahay. sidaas ayuu Cumayr uga mid noqday saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Allah ka raali noqdo Cumayr bin Wahb.